inay yeelato awoodo kala madax bannaan awoodahaasna ay maaragtay isbalans garayaan oo isu dheelitirmaan marka awoodahaas ama hay-adahaas mid ka mida way garsoorku oo wuxuu ku xiran yahay hay-adihii kale ee dowladnimada ayuu ku xiran yahay marka dowladdana guud ahaan waa wax badan baa laga filayaa dowladnimada hadday noqoto dowladda qeybta fulinta iyo baarlamaankii waa nidaamkii iyo waxyaalihii ugu shaqaynayay maaragtay sameynayay iyo garsoorkii oo shaqadiisu ay tahay wixii qalada ee la galo inuu asagoo qabto oo waardiyeeyo marka waxaan insha allahu tacaala waxyar rabaa inaan ka ifiyo caqabadaha garsoorka guud ahaan Soomaaliya haysta caqabadaha waxaa iyaduna mudan in la sheego furas ma jiraan waxyaalo oo maaragtay uu hadda ku wanaagsan yahay ama jaanis uu haysto oo fiican ma jiraan intaan marka taaba waxaan rabaa inaan qofka Soomaaliga oo dowladnimadu ay ku cusub tahay waxyaalaha laga rabo waxaa ka mid ah habboon tahay inuu aad u aaminsan yahay waxa la garsoorka iyo cadaaladda marka loo garsoorka waa hay-ad ka mid ah laakiin cadaaladdu way ballaaran tahay oo qayb kasta oo ka mid ah dowladnimada qayb kasta oo bulshada ka mid ah taaka kastoo la qaado waxaa loo baahan yahay in cadaalad la helo hadday qoyska tahay hadday waxbarasho tahay hadday suuq tahay hadday dhaqaalaha tahay dhinac kasta waxaa loo baahan yahay in cadaalad la helo cadaaladdaas marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu faray cadaaladda haddana cadaaladdu maadaama ay tahay fikrad guud oo bini aadamku uusan isku waafaqi karin ayaa sharciga laftiisa ayaa cadaaladda damaanad qaadaya oo dadka xuquuqdooda u kala cayimaya adigu xaqaasaa leedahay iyo xaqaasaa leedahay si hadhow markaas loo kala ilaaliyo oo qof kasta uu u waardiyeysto xuquuqdiisa marka la fiiriyo garsoorka oo hay-ad ahaan haddaan ula jeedo bulshooyinka kale ee caalamka waxaa la dhihi karaa waa waxa keena inay bulshadaasi ay deganaato oo ay ku noolaato nolol istiqraara aanan arag dad inta badan caalamkan maamulkiisa uu taabagalay dadkuna ay wacyi gashan yihiin ma aragno dagaallo iyo kacdoono iyo maaragtay waa yar tahay waayo waxaa aada loogu dadaalay in wixii la isku maaragtay la isku dheelitiro waxaan rahnaa bulshooyinka adduunku waa wada bini aadam innaga ma fiicna bulshooyinkan hadda aan dagaal la-aanta iyo ku nool waxaa keenaya shaqo la qabtay ayaa keenaya waxaa kaloo keenaya waxaa laga baajiyay waxay keeni lahaa inay dadku isdiriraan oo qofku uu xoog uu ku raadsado xaqiisii cadaaladda ama garsoorka waxaa lagu mateli karaa waa wax dadka lagu daweeyo sida isbitaalka oo kale isbitaalka waa aragtay qofku marka uu caawa hurdo ladi waayo oo xanuun uu hayo wuxuu u kala hayaa subaxii isbitaal ayuu u kala hayaa sidoo kale qofku marka uu xuquuqdiisi waayo oo caawa ciid uu la galgalanayo uu la gami waayo wuxuu subaxii uu niyadda ku hayaa inuu aado maxkamad inuu aado oo xaqiisii uu sheegto oo yidhaahdo waxan baa lagu sameeyey kan iyo kanaan xaq u lahaa waa laiga dhacay shaqaan xaq u lahaa waa laga diiday anigaa waxaas lahaa caddaymaheedana waa kana waa laiga qaaday markaa qofkii loo soo celinaya hadduu qofku intaa ogyahay qofkaasi
dagaal ma sameynayo gacan ka hadal ama inuu xaqiisi asagu uu xoog ku raadsado ma sameynayo dabcan hadduu intaa meel ku ogyahay intaas qofku inuu ogyahay laftigeeda waxay keenaysaa inuu ku fadhiyo maaragtay maxaa la yidhahdaa kalsooni inuu ku fadhiyo halkaas oo uu leeyahay waxaaga waa helaysaa wixii u qornaa oo dastuurkaas meesha ugu yaallay qofkii uu raadsanaya uu soo leeyahay haddii taa la waayo bini aadamku dhan waa isku mid qof kasta wuxuu xaqiisa ku raadsanayaa fawdo iyo dagaal iyo wixii la mida marka horta marka ugu horeysa ahmiyaddaas uu leeyahay garsoorka haddiiba aan wax yar hore u tallaabo tusaale ahaan waxaa ku jirta maxkamadda sare waxa la yidhaahdo dacwooyinka la xiriira maamulka hadda dadka haddii masalan gurigaaga haddii lagaa dhaco ama dhaawac lagu gaarsiiyo ama qof la dilo dabcan maxkamadaha heerka hoose kasoo bilaabma lakin haddii qofku uu dacwad maamulka laftigiisa hadduu ka cabanayo wuxuu yani dowladaha qaybtoodna waxay sameeyaan maxkamado gaar oo administrative court iyo xaakim idaariya waxaas la sameeya lakin annaga soomaaliya marka la yidhahdo waxa la joogo maxkamadda sare ayaa wax kamid a awoodaheeda inay gasho dacwad maamul waxaa imaanaya qof shirkad qandaraas la siiyey dowladdu ay siisay oo haddana ay kala noqotay ayaa imaanaysa qof shaqadii laga eriyey si sharci daraa oo dastuurkii wixii aan ku qorayn qofka xuquuqdiisa ama contractii lala galay dowlad ahaan markii xorriyadda la qaatay system baa la sameeyey waddankana waa ku cusbaa maxkamadaha oo dhan khibrad maana u lahayn waayo dadka soomaalida dhaqan bay lahaayeen haddii ay wax gargaaraan qaar bay wax xalin jireen nabaraa la siin jiray culumaa joogi jirtay manhaaj ayaa maaragtay xeerar baa jiray waxaan galnay dowlad casri ah oo xuquuqo ay kala qoran yihiin oo maxkamado xeer ilaalin boolis waxaas oo dhan lagu cusbaaya dastuurka laftigiisa xuquuqaha dadka lagu kala dhigayo oo kala xadidaya isaga laftiisa waa lagu cusbaa maxkamadihii xilliga ugu horeysa waxaa ka shaqeyn jiray xataa dad ajnabiya hindi talyaani ummado kale garsoorkana way ku jireen ilaa 68 maxkamadda sare waxaa haystay nin talyaani laba nin baa isku bedeshay weliba maxkamadda sare waxaa isku bedeshay laba garsoore oo talyaani xataa maana awoodda maxkamadda sare in lagu maareeyo xataa maanan lahayn iyadoo marka 68 ayaa waxaa loo magacaabay maxkamadda sare garsoorihii ugu horreeya Soomaaliya ayaa loo magacaabay ama chief justice ugu horreeya Soomaaliya ayaa oo Soomaali ah wuxuu ahaa 1968 kadibna waxaa la galay xilli adagu waddanka waxaa qabsaday inqilaabka hadduu qabsadayna shaqooyinkiisa waa iska garanaysaa inqilaab wuxuu ka bilaabay dastuurkii hore waa laalay garsoorkiina waaba kala dirayba golihii adeeg garsoorka waddanku lahaa yani adeega lama oran jiray xilliga golaha sare ee garsoorka ayuu waddanku lahaa kaasna waa la kala diray dastuurkiina waa la laalay ilaa laga soo gaaro 1979kii oo dastuurkii kale la sameeyey xilligaa ku xigay Soomaaliya waxay yeelatay dastuurkii 60kii 79kii iyo 90kii oo asagana mid kale la sameeyey oo xoogaa furfuran oo xorriyaadkii xoogaa soo celinayay laakiin xilli xeerihii federaalka dhacaan bay ahayd waxaa ku xigay dastuurkii meelgaarka ah oo dastuuro adigu charter la sameeyey xilligii carta waxaa ku xigay 2004tii bagaata isagana waxbaa ayaa la sameeyey waxaa ku xigay kii 2012kii ansixiyeen dad 855 qof ay ansixiyeen oo hadda joogo oo la yidhaahdo dastuurka meelgaarka ah marka 69kii ilaa 79kii digreeta waddanka lagu maamulay digreetooyin soo baxaya garsoorkiina
waxaa la dhihi karaa mar haddii dastuurkii iyo ay lalaalay golihiisiina la kala diray dastuur adag garsoor adag ma jiri karaba waxaa la sameeyey maxkamaddii badbaadada taa marka waxaan ahnaa haddii 1970 ayaa Soomaaliya waxaa ka bilowday mucaaradii 75 60 waa wax ay aad u soo socotay ilaa markii dambe ay xagga goostay xilliyadaas haddii aan lahaan lahayn garsoor adag oo qofku inta u dacwoodo xaqiisii uu helayo qofku inuu dagaalamo ama jabhado samaysmo ama yani uma baahdeen waayo inaad jabhad noqotid waa wax aad adag dagaal gasho ku dhimatid oo haddii aad si sahlantaad dacwad geystay dacwaddii lagu xukumayo oo aad ka helisay madaxweynaha oo saxta soo jeeda intiisu shan yihiin aad lagu xukumayo adigi ama qofkii awood ka lahaa wasaarihii iyo baarlamaankii taas xataa fariin guud oo caafimaad wey xataa yani haddii aad dawladdii dacwad ka heshay ama soo eedeysid ayadoo xataa lagu diidaya oo dawladda ay maaragtay kaa dab haysato haddii adiga dacwad lagu xukumo sida hadda halkan Kenya ka dhacay doorashada dhan baa ayaa la baabiyey arrintaas imise qayb ka noqotay inay dadku degaan ama caafimaad xataa la kala dawoobo waayo dawladda xoog badan bay lahayd dhaqaale lahayd haddana wixii waa madaxweynihi asagoo ujeedo aqbalay oo doorasho kale lagu celiyey waxaan isleeyahay waxay keentay aad bay waxay u keenaysaa in kala caafimaad haddii marka aan arrintaas oo ay la tagtay raalliga aada aan waxay ku noqdo fursadaha garsoorka hadda uu haysta waxaa ka mid ah dadka Soomaaliyeed hadda jirtaan dawladnimada si guud markaan u yiraahdo waxaan oran karaa dawladnimada way rabaan waayo burburba ayaa dadka soo mareen burburkii wuxuu keenay in qof kasta inay dadkii la kala adkaan waayo la ismari waayo sharaftii awoodda ay lunto dadka Soomaaliyeed wacyigooda kor u kacay caalamkay kala galeen waxay arkeen sida adduunka loola macaamilayo qof Soomaali halka ka tagay qaxooti inuu maxkamad inuu qabsado inuu malbood helayo cadaalad helayo waxaa helay dadka wacyigooda kor u kacay wacyigaas laftigiisa wuxuu saacidayaa inuu dastuur inuu garsoor inuu dhaqaaqo oo dacwado la galo oo maaragtay wax socdaan xeer ilaalin shaqeyso boolis shaqeeyo wacyiga noocaas wuu saacidayaa wuuna jiraa hadda oo hadda xilli ka hor sidii hadda uu ahaa waddanku ma aha dadku maxkamadaha way yimaadaan xataa heer federaal waxaa yani kagaba sii horreeyeyba yani maamulada kale waddanka hore uga sii jiray oo qaybtood ilaa 91 isla markiiba garsoorkooda uu xilligaas uusan xataa marna uusan istaagin oo maxkamaduhu ay faraayeen qayb bay ka mid tahay waxaa qayb ka ah fursadaha hadda garsoorka uu haysto dadka waxbartay mutacalimiinta ah inay diyaar u yihiin inay garsoorka galaan oo awal taasoo la jaan qaadaysa soo hagaagidda guud ee dowladnimada iyo systemka inuu soo hagaagayo oo dawladda ay mushaar bixinayso oo askarihii dadkii mushaar la siinayo oo shaqaalihii rayidka ahaa yani ay leeyihiin maaragtay qaab lagu shaqaalaysiiyo mushaar wax la bixinayo waxyaalahaas oo qayb waxay ka noqonaysaa inay garsoorku inuu noqdo meel yani soo jiidashada macnaha waxaan kama wado yani marka loo fiiriyo heerar la ahaan jiray garsoorka hadda waxaa soo gelaya xilligii hore dadka aqoonta leh jaamacadaha kasoo baxay bartay qaanuunka iyo shareecada iyo masoo qofka banaankiisa inuu joogo ayuu ka doorbidi jiray inuu garsoor soo galo laakiin haddeertaan dadka maxkamadda sare oo kale hadda jooga 9 garsoore iyo guddoomiyaha marka la yidhahdo maxkamadaha hoosena ay la mid yihiin ama u badan yihiin waxay u wada badan yihiin shahaadada masterka inay haystaan yani 8 ka mid waxay haystaan master shahaadada masterka oo sharciyada qaybaheeda kala duwan ay ku haystaan
ayadoo lafteeda waxay ka mid tahay furasta haysto waxaa ka mid a laftigiisa caalamka inuu danaynayo in garsoorkaas wax la taro oo iyada laftigeeda waa qodob isaguna meesha ku jira arrimahaas oo dhan way jiraan sidaasoo ay tahay waxaa jira caqabado marka ku xeeran garsoorka caqabadahaas waxaa haddii la yihahda ha loo sameeyo maaragtay hala kala ratibo oo sida u kala sareeyaan waxaan ugu horreysiin lahaa garsoorku waa hay-ad ka mid ah hay-adaha systemka dowladda marka waxaa saameynaya siyaasadda guud ahaaneed jiidka waddanka hadda ka jira iyo muranka siyaasadeed iyo weli wixii waddankii oo aan jiho aan u wada jeesan laftigiisa waxay ka mid tahay caqabadaha garsoorka haysta xalinka waa caqabadda koowaad waxaa ka mid a caqabadaha hadda haysta dastuur waddanku weli ma saldhigan oo waxaa ku jira dastuurka kumeel gaarka baa noqdaa dastuurka ayaa waxaa laga rabaa inuu sheego nooca garsoor ee waddanku yeelanayo waddanku wuxuu u guuray hab cusub oo federaal ah federaalkaas marka garsoorka nidaamyada federaalka dunida ka jira ayaga laftigoodu waa heshiis federaalka marka qaababka garsoorka ka jira wuu kala duwan yahay hababka garsoorka ka duwan soomaaliya weli marka la iskuma waxaa la dhihi karaa yani si toosa loogama heshiin nooca garsoor ee waddanku ku qaadanaya hadda dastuurka kumeel gaarka wuxuu dhigayaa waddanku wuxuu leeyahay saddex yani saddex heer oo garsoor oo kala sareeya maxkamadda dastuuriga maxkamadaha heer federaal iyo maxkamadaha dowlad goboleedyada ayuu dhigayaa qodobka 500 marka macnaha maxkamadda dastuuriga jirta hadda ma jirto maxkamadda dastuuriga ka hor waxaa rabaa inuu jiro golaha adeeg garsoorka hadda ma jiro waxay ahayd inuu jiro oo hay-addii saddexaad maaragtay la sinayd baarlamaankii iyo fulintii iyo hay-addii sare waayo maxkamaduhu ayagu shaqadooda waa dacwo maaha maamul laakiin golahan waxay ahaan golihii maamuli lahaa garsoorka dhan balaan iyo qorsho u dejin lahaa garsoorayaasha xuri lahaa imtixaami lahaa anshax marin lahaa ayaa meesha ka maqan caqabadaha waxaa ka mid a sidaan sheegay dastuurkii oo weli lagu heshiy haddeertaana waxaa la rabaa in laga heshiiyo siyaasad ahaan systemka garsoora waddanku qaadanaya ma waxaan qaadanaa garsoorka xilligii hore ee militariga maxkamadaas marka ugu sareyn jirta gobolka maxkamadda rafaan gobolka banaadir waddankuna wuxuu lahaa hal maxkamadoo sare ma sidii oo kale u noqonaya mise dowlad goboleed kasta waxay yeelanaysaa maxkamadeeda sare maxkamadeeda dastuuriga ah maxkamadihii kaloo kasii maxkamadda dastuuriga lama magacaabay laakiin mar baa la magacaabay oo sida loo magacaabay waa sidii 60kii ku taalay wax weeye maxkamadda sare ayaa waxaa lagu soo darayaa 4 garsoor oo kale oo labana waxaa soo magacaabaya hay-adda fulinta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo labana waxay ka imaanaysaa baarlamaanka afartaas iyo maxkamaddii sare ayaa u fariisanaya qadiyad dastuuri hadday jirto maxkamaddu marka waxay isku bedelaysaa maxkamad dastuuriya laakiin dastuurkan federaalku sidaa hadda ma qabo oo wuxuu qabaa maxkamad dastuuriga inay madax bannaan tahay gooni ay u habaysan tahay 5 garsoorana ay leedahay oo qodobada ka hadla wadamada sida hadda Pakistan Mareykanka oo kale waa parallel waa isdhinac yaala oo waxaa jira maxkamado heer states iyo maxkamado federaal oo dacwooyinka federaalka kaliya wadamada sida Ethiopia Sudan Pakistan waxaa la hayaa khibrado fara badan oo dowladahaas way ku kala duwan yihiin waxay u baahan tahay marka inta laga heshiiyo haddiiba weli nooca garsoorka aan laga heshiin
waad fahmi kartaa garsoorka inuusan markaas usoo adkaan karo taa keliya kugu filan sidoo kale inuusan wada midaysnaan karin ayada lafteeda qeybi ka tahay caqabadaha waxaa ka mid a dowladnimadu ma kala hormarto oo hay-adaha dowladdu isku si ayay u jaan qaadaan wayna isa saameeyaan waxaa system loo yiri macnaha waxa weeyaan waa wax isku wada xiran haddii dhaqaaluhu liito amnigu liito waxbarashadu liidato garsoorku ma fiicnaan oo lama fili karo garsoor fiican iyadoo aqoontii waxbarashadii ay burbursan tahay dhaqaalihii uu yaryahay oo miisaaniyadda waddanku ay tahay marka taasna waxay ka mid tahay dabcan waa mushkilad guud waxaa kaloo ka mid ah mushkiladaha la xiriira dabcan shaqaalaha iyo tayada iyo lafteeda caqabadaha way ka mid tahay laakiin waa wax la iska fahmi karo guud ahaan hal caqabado kale aan ku daraya oo ah garsoorku wuxuu ku samaysmaa xog ayuu u baahan yahay si uu u gaaro xukuumadiisa sida dhakhtarka oo kale dhakhtarku si kastoo aqoon u leeyahay haddii uusan qalab haysan qalab wax ku baaro scan uu saaro raajo uu isticmaalo laboratory dhiigga uu ku qaado hadduusan waxaa markuu isla helo ayuu dhakhtarku wuxuu gaari karaa yani xukun sugan ayuu gaari karaa dhakhtarku uu qori karaa garsooruhuna waa lamid haddii baaritaanku hadduu liito dembiga markuu dhaco masalan qof meel lagu dilo waxaa rabaa in ay jiraan qalab fara badan oo boolisku uu qalabaysan yahay si ay dhiida dambi baaris ay qalabaysan tahay haddii kiisku halkaa uu kasoo dayacmo garsoore maxaa u imaanaya garsoore waxaa u imaanaya waxaan la ogin oo moogtahay qofkan cadeymiis maxay yihiin maxaa lagu hayaa telefonada systemka maaragtay waxyaalaha maaragtay isku wada xiran oo dabcan waa system dhan ayada lafteeda qeyb ayay ka tahay macnaha waa taas ma garan karaa waxaa kaloo ka mid a garsoorku keligiisa eeda ku dhacaysa laakiin garsoorku ama maxkamadaha waxaa ka horeeya hadduu dambiye la galaya hadday tahay kiisku markuu dhaco wuxuu kasoo bilaabanaya xaafadda hadduu ka dhaco saldhigga booliska meesha ugu dhow ayaa soo maaragtay qabanaya oo maamulaya ayaga ayaa maaragtay xeer ilaaliyin ugu gudbinaya maxkamad ugu gudbinaya halkaas kusoo bilaabanaya dambi baaristii xeer ilaalintii garsoorkii waa maaragtay maxkamadihii hadduu ku dhamaadana wuxuu tagaya usluubtii iyo xabsiyadii iyo meelahaas hadday dacwadu tahay dacwad madani ah oo civil ah oo xuquuq dadku ay ku kala dacwanayaan sida dhul iyo sida hadda waxa ugu badan oo waddanka jira dabcan wuxuu u baahanayaa dokumentiya in la caddeeyo sabarwaawooyin iyo warqado iyo aatooyin waxyaalaha wax lagu kala iibsaday waxaas oo dhan haddeertan waa way saaran tahay in la forgery la sameeyo qalab lagu ogaado ma jirto warqadan xataa inta sane ay jirtay adduunku waa la soo saari karaa hadduu qof soo samaysto shahaadooyin baa la soo samaysanayaa oo warqado shaah baa lagu qabeeyaa maarata suuqa la sheegayo si ay u noqoto wax sagaashankii meelahaas oo kale ee jirtay ilaa lixdamaadkii markaasaa gebigeedaba markaa qalab lagu soo saaro waddankii dokumentiiska waa laga kala baxay dad bay gacantooda u galeen oo hadda ka mushtarak oo ay adag tahay haddii marka evidenceskaasi waxaas oo dhan iyo cadeymahaas ay liitaan dee garsoorihii malaay maaha inuu aseebo way aad u adkaanaysaa yani xataa hadduu dadaalo oo daacad yahay oo karaankiisa meesha maaragtay uu furo xataa way adag tahay waayo waxaan caawinayn documentiska dhan baa caawinayn markii sabarooyada kale waxa la sameeya waxaa loo tiraa hubin wax la dhaho xafiisyadii laga hubinaya laftigooda maaragtay mashaakil baa ka jira gobolka banaadir u dir waxaa jirtaa maaragtay dad waxaa jira soomaaliyeed xilligii dowladda ay burbureysay dokumentiyaashii oogaa maaragtay wixii ay gacanta ku hayeen la fakaday xafiisyaha hadda samaysteen markaas
والله دري ورقة المصحبة تقييدي هاي سمكتالا أرشيف كإيو أركيف يو المصحبة كاسوق لها ورقة واهية سبب الوضع اسمه صح كاس على واحد كوتا عدين منك هبل لها امتياز قاطي ما كوتا هدور الروح ليه أما ما أعرف ولا سكوري امتياز الدولة ده رأي حسب واحد يقطعنا هذا الدولة دي دول مركب كسيس الدولة دي مدة الله وجه قفك والسي ومنتي عام كويسة هذا الدولة ده كلام waxaa dhacaysa marka qofkii oo dokumentiga haysta inuu ku qabsado kii dhistay oo yiraahdo dhulkan anaa iska leh waana runtiis laba dokumenti oo sax ka wada waa dawladda kii hore markay siisay kama soo celin marka evidenceska oo adag laftigeeda qayb bay ka tahay marka waxaan aad u waafaqsanahay cadaaladda ahmiyaddeeda وإله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله قوامين بالقسط وحلو جدا حين لما وضد عدالة بوهيلا عدالة بوهيلا آمين سن عدالة هنا يمرونا سن يبدأ يعني دارسا وحمك كسر الجبينية وحكروا عدالة سامين كله waxaa la yiraahdo madaxda sare ee dawladda haddayna garab siin cadaaladda oo garab siintaas ha noqoto dhinacyo badan inay ixtiraamto madax banaanidiisa oo iyada laftigooda ay ogolaato inay garsoorkii inuu awood yeesho garsoorka hadduu awood yeeshana madaxda laftigooda uu qabanaya ilaa kan ugu sarreysa marka waxay u baahan marka taas runtii hadda waxna hadda way ka bilowdeen oo waxaa la dhihi karaa maamulka hadda jira anaga maxkamadaha sare marka hadda lasoo xolay runtii waxaa la dhihi karaa faragelin ma jiro yani si guud marka loo hadlo waxaa dhici kartaa sidaas ay tahay haddana golaha sare oo maqan adeega oo maqan garsoorku way adag tahay inuu madax banaani helo waayo garsoorka waxaa rabaa in madaxweynuhu guddiga golaha adeeg markuu qofku soo propose gareeyo madaxweynuhu markaas uu magacaabay hadhowna xilka kama qaadi si loo helo si uusan uga baqin oo uga warwarin xukun uu gaaray ama garsoor uu riday inaan isaga lagu ciqaabin laakiin asaga hadhow hadduu khalad sameeyo racfaan baa ka furan markaa in laga qaato عشان مرنتيسا واحد استوى وراح سأل لكن ما راح بس ما عقاب أنت أصلا قصة دوبيني أبو ما سنتي أنا بدي وما يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. وهاي سنة وقتي أفرت دقيقة مع الناس. نوفنا إن شاء الله سنة جديدة. مسؤولين يا تبعين فرح. موضوعا وحكومة رأيه صارت الشغلة اللي قعدت بروجر إلى خير مع مقاولات السوق سيبود شيء صعوبة للنهاية ترى كدولة لما نقبل في رسالة من الأساس فيه إن دستور النمو النمو يسمى حساب أما كردون الدولة دانا إني قيم في صدق لاستي طبعا واحد قبل البرلمان وكله شرع الدين الممثلات في سوريا إنه هاي الحكومة وحي قوانا يسا قولها كلنا اللي برنامج كودي سياسة وإدارة نقول أقل هاي بينه ومن الجمهورية وحرمين أجندة قرمين ما وزارها يوديسا وزير البوليس وزيرنا إليه مادة خرشي هذه أساسية هيدا تقوم بهنايا bulshada inay bixiyaan garsoorkana isagoo madaxa bannaan asna inuu isla xisaabtankaas qayb ka noqdo oo wixii dastuurka lagu heshiiyey dastuurka waa muraayad la iska arko waa heshiis bulshadeed dadku waxay rabaan inay ku dhaqmaan ku qortaan laga korkortamo
كصوماليا وكان ولي بنصيب في كدوا يعني وشيسين الشيء هو الدستور هي السيالين لقى لقى الشيء وحلك على أن سيهي بس كحليه كدي من الدجاج مقول ما هذا حين لو وضع نقول هاي سنة لو تحملها لو وضع برضه وهي مركز دستور كاسلو قرطي وهي أديك كلا دونا إعلامها الدولة دا أي سهي أديك لو ترى كلا يقطع والدستور نبدأ البرمين وهي نبدأ البرمين ويسن حسابتنا إمام وياه قايلين هايو الله ويشاء وهذا marka afartooda shaqada ay qabanayaan la isku daro waa marka loo baxayo in dadku ajenda qaran u yeesho adeegyadii bulshada oo inta aan la helo markaas dawladnimo bulshada marka loo baxayo marka hadda fiirisid saddex dastuur oo soo maray marka laga yimaado meel gaaradan cartan noo soo bilowday dowladda Bagafi iyo kii 2012 oday ay assemblyga ay sameeyeen lixdan kiliftiisa Talyaaniga noo qoray سافت ماشي كقرنتين اللي ماشي هيبقى الشارع كعرف بقول إيه لو تاني صدق فين بقول يصدق إنه بيحل اللي بعد ديبوتاتي أو الصوماليين بقى هلا قفي شارع عندنا أنت كلا شارع واحد عبسي كمان قاري يقول مورتجيج وبيجري وتلان وحنا ساعتين لغرامة بس المرة اللي أقول العلماء إنه هيك ترسلهم في عمل وحيلا تعزير عن هاي سنة ما أنت الصومال تقارب ديك عبد الرشيد بي كصوب بلابان قارت دواتني شنتي علماء دي اللي هي تعزيز كسب بلاوا هو يسكاشن كي مركز سومالي برتس كاسلت في كسب بلاوا لكن هدي بالتعزير نوع أي جري كرتو حصورت كريني أما ما أنت وحتى بلاوا تلتفت لأن هذا بدت جوجا إنسان أنا مسلم تاينا أنا هنا أيوة أوجي جيم سيدا يوم حساب الجو وحتى من الإسقاط ما كم وحاصرن أفيرس الحوجين يسمى محمد الجرسور بقوله دي دين لغفيريو دي لقن لغفيريو دي حضارات السيدة الدين كدت كمان تجوا إنه ليه قرن يكوي لا ترى أنت لغفيريو مهم إنه يه جرسور بعد أركيسا مرة ضمك كسيدة ماس وجرسور وسون كودارين أنتم سنة إنه شرعات دي سد مركان كبر مرة وتكون عندنا إن شاء الله markaad fiirisid hadda dalka min raaskamboon ilaa raas casar ilaa lagu hayo garsoorka dhabta oo Soomaalida maanta ay ku dhaqantaa waa saddex nooc oo la isku dhafay shareecada soo qaataan kooda jibnaaniga la dhihi jiray baa la dhihi jiray koobi sagaashankii ka horreeyay iyo xeer Soomaali la isku dhafay xeer Soomaali la isku dhafay marka waa combination cusub oo isku dhaf cusub oo marka dastuurka meel gaar ah wixii laga waayo أما ما تحبنا برنامج الجرسور كربيل لوايو أما جرسورة لفتكيس وإلهي فيها يوم سقي واحد جرب تدخل حقيقة أنا نسكت أفسد إحداث واحد ربعكم أنت لوايا مرة قاعد ده برنامج لا أدم محكمة دينيو وده قوانين أمر نقول عليها مر حاكم بعد لا أدايو ترى إنه يسوي حكومي جري ما يقصون وحتى الحمر يسلج جوار مركا يدرس Soomaaliya marka qaarkood waxa la calaamadaha adduunka inuu soo dhamaanayo waxa kamid ah marka dadku ay cadaalad marka fiirsituuro kasta oo Soomaaliya iska day caasimadii maxkamad sare aan ka hadalnay uu qofku marka la yiraahdo maxkamadda alaada oo kaga qanacsan in banaanka la isaga hadlo la qamaysto ama xataa iska cafiyo intuu maxkamadda aadi lahaa ilaahay waxaan yiraahdaa subxaanahu wa ta'ala xukuumad caadil ah gaalabaha ahaatee عبارة وبداية من تيمين وهو المنعنى حكومة عدالة درن أو جائر أنا مسلمها اعتواد الدجية مداد عريس كان هاي أوين وياي باهد الواقع عدالة هي عدالة درن الجرتة أنت سكو بالمكان له كسكو صدق سؤالات أو قوقا من جعلنا هنا كعليو قرصورها أو مهمة garsoorka Soomaaliya maanta ka jira uu leeyahay marka la fiiriyo madax banaani intee la eg jirta oo aan ahayn madax banaani laamihii kala dowladda ka madax banaantiin kaliya uu qofka garsooraha laftigiisa ka madax banaan yahay inuu baahi u qabo dadka uu kiiskooda gacanta ku hayo inuu muto xer mushaar gunooyin
aqoon iyo karti iyo hufnaan qofka uu qabo ama isu quurin inuu waxaas galo faylkii asaga ay kala badbaadaan oo ilaahay uga yaabo واسعين وولد اسعين قصور ياشي اسكوان رسول العالم شرعي وكوش قيسان يا عن كل هذا القصور لكن على الأقل شرعي بهرون اسعين وكل هذا القصور محال كاسم سو متعلق وكوش قيسان مع لحظة يرتان مكور قبطان شرعي هو أقول يسوع وما هو يقول هذا القصة. هذا الدنيا ربنا وجري عند الدنيا المشقة مكة أدنى الوقوع وحدش كتير مكة هذا موجودين يا رجال أنا دعوة نقدر كان على قصة نيجا وما ارتأت موجودين يا وانا وحدي أهلو وتي ما تي خبرة كي وقال بنا هاي ومش السعودية لكن isbedel badan inuu dhacay noolkay dhalinyarada hadda laga soo bilaabo madaxda sare oo gudoomiyaha maxkamadda sare gudoomiyaha maxkamadda diyaaradda magaranaysa gobolada racfaanka marka waxaan weydiinayaa macalinka ustaadka professorka maxkamadaha masalan maamul goboleedada oo kale waxay leeyihin maxkamad sare iyo maxkamad dhexe watan gobolka Soomaaliya المحكمة هتصل التجملة مركا سناب وكيسكو إلا هذا ما يسوى في السير مثلا قف قرب صوت كلاي تجمدي ولا قصو بوليستي وكلا أما ساحة نقطة عن فضل نقطة قبل كيم ردير رو كان عفان تلا قصو معتها ولا قصو بوليستي محكمة السرا حق هذه حكومة السودان محكمة السرا كارنكا وجود يا حما الله محكمة السرا ليهين هديت قفكي معمول مال المعبورية أو هيركود كليه هاي أو منارة كليه وهي أصلا قبيلة ولي ما الله يفكري قاب يعني لو حلي صوت العربي جدا و مركز دور جدا ماشي كعك واحد يفهم ماشي أنا كعك معنا أنا من عليك الدور إني يمكن أعرفها guud ahaan horta waa saas marka haddaan ku bilaabo su-aalaha ugu horreysana waxay iska dulmarid sameeyey garsoorka madax banaanida dastuurka uu tilmaamaya sababaa sheegay garsoorka madax banaanaya wax kuwaa saxdooda laakiin hadda ma madax banaan yahay waxaa la dhihi karaa haa iyo maya yacni madax banaani oo hadda maaragtay buris iyo maxaa la dubana loo kortaagan yahay le saa u xukumo saa yeelaya يعني ما جفت لكن حتى ما حدثت ما دعك تا قف كسورة إن الواقع قابع أما الشقة اللي هو غيره وكوا كيس أما وحو حكمي ويدعك تا وايو ولاحظ هدي الحناجيو وما أعرف وين أنا عارف فعلا كيس هذا ينتلق قليل وكسورياش كره قليل أي كوا ين maaragtay shaqadoodii isla markaasna golihii sare ee garsoorka uusan jirin waxaa ka mid a garsoorka madax banaanida qaybta dhaqaale ahaan inuu madax bannaan yahay waayo fulintii baan gacanta u horsanaynayo albaabkooda taagna waxa lena mushaarkeena siiya waa nagu yaryahay maaragtay waxa maaragtay waxoogaana maaragtay ayaa ayada qayb bay ka tahay oo maaragtay xagga baahida garsooraha laftigiisa waxay qayb ka noqon lahayd madax banaanida qayb ka noqon lahayd inuu ka adkaysto gacmo-gacmeyn iyo walaaluush iyo hebel iyo qabyaalad iyo waxyaalahaas laftigeeda qayb bay ka noqon lahayd waxyaalahaas oo dhan waa way jirtaa garsoorka uu tabayaa laakiin haddana qofku madax banaanida waxaa waaye inuu mas-uul yahay oo dareemayo waxaan inuu janno iyo naar maadaama dad muslim aan nahay hadduusan marka waxaan ka shaqayn kara waa inuu isaga tago oo uu shaqo kala raadsada wax cid ku khasbaysa oo oranaysa ilaa waa inuu garsooro noqdo ma jirto taas waa taasaan ka leeyahay marka madax banaanidu waa sax waxna waa haysana waxna waa naga dhiman yihin laakiin waxaan rajaynayna insha allah inay intaasna inay dhamaystiranto
marka la fiiriyo awoodaha kale ee dowladda sida fulinta iyo waxa weeyaan way isku wada xiran yihiin oo cilaaqa ama xiriir noocyaa baa ka dhexeeya. runtii waxaan leeyahay madaxda sare waxa ay noo sheegayaan oo ummadda u sheegaan inay garsoor inay ka go-an tahay inay dhisaan garsoor cadaalada si waddanka cadaalad loo gaaro oo qofka muwaadinka